قبل كسول ياله دقمة عينبا ياله أدبيني ويدين ور صول دقمة وين عين تلا شيئا يا وعينبا وواتن سومالي لان بانو تابع سنهاي كلا قوينتي كلا قايبين تدك دونية إني لبد دقمة يبط maamul goboleed ay kaga helaan dawladda dhexe gobolka Sool gaar ahaan degmada Caynaba waxaan idinka mahad celinaynaa soo dhaweynta ballaaran ee aad noo sameyseen haddaan nahay waftigii Irir Soomaali ee ka soo kicitimay Soomaaliya gaar ahaan caasimadda Muqdisho aad iyo aad ayaan idinka mahad celinaynaa soo dhaweynta qiimaha badan leh xushmada badan leh aad noo muujiseen waxaanu haddaan waftiga Irir Soomaali nahay waxaanu safarkayagii ku soo marnay gobollo waaweyn oo caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ay koow ka tahay gobolka Awdal Berbera Burco runtii idinkoo degmada Cayn ama Caynaba ah soo dhaweynta isu soo baxa iyo shucuurtaad muujiseen ma jirto ilaa ay caasimadda cid muujisay taana waa idinka mahad celinaynaa waxaad xaqiijiseen inaad tihiin faraha iyo tirada degmooyinka eeda ah ee Soomaaliland ee degmada labaad ee labaysa Gabiley hadday noqoto codad iyo hadday tiro noqotoba taasi maanta waa mid taariikhda diiwaanka idin gashay intaa ka bacdi haddaan ujeedka safarkayga aan ku soo dhawaado annagu waxaanu joognaa Soomaaliya ama ayaan joognay ama deegaanka xaggaasaan deegaankaygu yahay waxaan ognahay xoogaal ka nahay wax badan aydan xoogaal ka ahayn Soomaalidu waxay ku maamaaday dabagaale abeeso guudkaas uu ka qabaa waxaan ognahay aanu ogsoonayn ama la soconay dhammaan dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee halka laga karkarinayo ay ka karkarinayaan dad aan deegaankan shaqo ku lahayn oo sheeganaya sida ku cad magaca SCC sidaasi waxay u taagan tahay caynna deegaankeeda waa la yaqaanaa oo waa degmadeedana waa la yaqaanaa gobolkay ka tirsan tahayna waa la yaqaanaa cidda degtana waa la yaqaanaa sanaag muro kama taagna waxaa cajiib ah meel aan dadka degan aan cidi tarixin oo haddana la sheeganayo oo waxaa aad iyo aad idinku dhalilaynaa aydaan mar qura taasi soo baxdeen isaad maanta iskugu soo baxdeen aad beeni weydeen war sool degmada ugu weyn ee caynta la sheeganaya waa Caynaba oo waatan Soomaaliland baanu taabacsannahay kala goynta iyo kala qaybinta dadka doonaya inay laba degmo iyo bad maamul goboleed ay kaga helaan dawladda dhexe oo runtii dadka halka jooga deegaanada maadaama ay kala durugsan yihiin lagu loo sheegtay in la leeyahay dadka Itaaleeg iyo degmada Itaaleeg eeda ah ee ka tirsan gobolka Sool runtii taawaan idinku dhaliilaynaa oo runtii inaad difaacataan magaca Cayn kritisku ku jiro qiyaamadu ku jirto magaalo hawdka ka tirsan oo buuhooda la yiraahdo ayaa Cayn lagu tilmaamaya laakiin buuhooda waynu garanaynaa waa ciida cas ee hawdka inta meel magac laga raro meel kale loo raro lana sheegtaa micnaha ku jira waxa weeyaan marka dadka ay marsadaan ujeedka ay leeyihiin iyo damacooda siyaasadeed in Caynaba idinku qabsadaan oo yiraahdaan Caynaba annaga leh taasi waa taas qiyaamada ku jirta marka micnaha safarkayga maanta waxa ugu muhiimsanaa muranka halkaas iyo waxyaabaha aan xoogaalka ka nahay inaanu xaqiijino idinkuna waad nala fahanteen shucuurtiina waad noo muujiseen waxaana isweydiimaha meesha yaala ee aan idin weydiinayaa gobolka Sool yaale degmada Caynaba yaale yaa dega aad baad u mahadsantihiin hadalkayga intaasaan ku soo koobayaa maadaama ay xilli kulul ay tahay rabadaanna lagu jiro kolley waxaan ka wada soconaynaa meelahaynu ka wada socon jirnay awalba aad iyo aad waxaan idinka mahad celinayaa qolada abtiyaashay cuqaasha iyo siyaasiyiinta ee ka damqaday lacagtii madaxayga la saaray in laygu khaarajiyo anigoo aan qori qaadan anigoo oo aan aflagaa doonin anoon xaydaabka iyo akhlaaqda aynu leenahay dhaqankeena suuban aan ka bixin iyadoo aynu ognahay kuwa deegaanadeena ka dhashaynama aynu adeero iyo wada waalidiin aad u tihiin ay jiida hore ay tagaan jabhadda huwintu ka dagaalamayso oo aynu isku wada haybnahay isku wada degaanahay oo inaga dhashay aan cidi juuq u oran in aan marka aan aragtida bulshada iyo dadka reer Soomaaliland ee difaaca Soomaaliland
iyo jirka Soomaaliland difaaca in dhiigayga lagu xalaashado yani waxay idin tusaysaa taasi dad miyaad aragteen idin oranaya waan isu soo gurmanaynaa oo daaroodnimo iyo reernimo ayaan iskugu gacan haadinaynaa oo iskugu habar wacanaynaa ee idinku iskuguma habar wacan kartaan isirnimada iyo irri Soomaale ma saxba runtii waxa weeyaan hasha geela cunta ee cabaada dadkaasi waa hasha geela cunta ee cabaada irri Soomaale waa isir soo jireena waxaan aad iyo aad uga mahad celinaynaa beesha isku soo gurmatay dhiigu biyo ma aha cid walbaaba awr midgaan geel buu ka dhashay cid walbaaba cid ay tahay ayaa haday qabiil noqoto uu noqonaysa annaguna waxaanu nahay beelweynta irri Soomaale عندي وسود وشا ونسك دفاعنا عندي فلقاديسا ونسك دفاعنا عندي قعني نوع هذيك ستة قعمة نسك دفاعنا عندي جينا وحياليسا ونسك دفاعنا عندي دجانا أما دجانا على الأركيسان كنت دجانا على الأركيسان إمانة عن أركينو عندها هي عيان نوم علينا أنا وهروان عين وحوجال بانوها وايد أنا عن كمل هذا وفدك كسر عتتي المقدشو لكن وحنا كسر كذا بالوينتا إري الصومالي Somaliland ما توقعوا ولا لهن سودانك نقول إنه هو كذا سودانكو إنتي يساوي معنا وفدك كله بس بالوينتا إري الصومالي الرئيس الصومالي الرئيس المقدشو يقولون ويا أركان عاد بانودكم هالعلينا وانا دلقوا شعوسنا وانا لقى عسنا هاي عاد بانودكم هالنقينا